السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa waaye Dr. Shaafici. Cawada waxaa ka cusubnahay masaajid Masjid Al-Khayr, laakiin waa ka gaari waaye aadaan ag xumahay. Marka waxaa rabaa inaan videogan sameeyo dadka u sheego faa'iidada ku jirto talaalka oo COVID-19. Hadda su'aasha ugu badan waxaa waaye boosterka muxuu yahay iyo boosterka maxaa loo qaadanayaa. Boosterka ugu hore waxaa waaye talaal oo difaacaga oo kor u qaadaya. Marka boost waxa la dhahayo waxa wax kor u qaadaya, wax ku saacidinaya waaye difaacaga ku saacidinaya. Sawirkan wuxuuna tusaa marka dadka oo horay talaalka soo qaateen bishii January amba February marka la gaaro 5 bil amba 6 bil marka la gaaro talaalkii waxtarkiisa waa sii yaraana. jirkaaga difaaciisa oo talaalka u lahaay hoos u soo dhaca. marka talaal kasta la fiiriyo inta waxaa waaye dad oo cilmi baaris sameeyeen. marka talaal kasta way fiiriyeen Pfizer, Moderna. Pfizer haddaa fiirino calaamadan jaalada kow hore qofka marka la talaalo 100% wuxuu ka hortagaa inuu infection uu ku dhaco. bil markay kasoo wareegato 90% uu soo dhacay. bishii labaad, bishii saddexaad xoogaa hoos u soo dhacay. bishii afaraad weli 82%, 83% waaye. July marka la gaaray 5 bil kasoo wareegatay 50% u ahay. marka saas waaye waxaa dadku loola talinayo in booster inay qaataan ama talaal saddexaad marka ay kasoo wareegato 6 bilood. marka taasna maxaa keenay viruska isbedelayo. marka viruska aad difaaca u lahayd wuu isbedelay, virus kala soo baxay. isla viruska coronavirus waaye, laakiin xoogaa yar wuu ka duwan yahay viruska koowaad adiga laga talaalay. marka bishii May oo sanadkan Delta variant amba coronavirus oo Delta kan la dhahayo 7% oo ahay wixii virus oo community ku jiro. marka la gaaray July sanadkan dhexdiisa Delta wuxuu noqday 94%. marka talaalkii adiga qaadatay coronaviruska oo January amba February amba March iyo April viruska markaas community ku jiray aad laga talaalay. June iyo July marka la gaaro viruski waa isbedelay. marka viruska adiga aad difaac u lahayd virus ka duwan community ku jiro. marka difaacagana hoos u soo dhaca. dadka oo qaateen Pfizer ama Moderna hadday 6 bil kasoo wareegatay. dadka oo qaateen talaalka Johnson hadday 2 bil kasoo wareegato boosterka inuu qaato waaye. Johnson wuxuu ahay talaalka oo difaaciisa ugu yar yahay. marka faa'iido badan ugu jirto dadkaas in boosterka inay qaataan. qofkii oo su'aal qabanaya waxaa dhakhtarkiisa warsan karaa. marka videoga intaas ku soo gabagabeynaa. fadlan su'aal haddaa qabtid commentiga hoos ku soo qor. insha Allah wax cusub markuu soo saacido amba waqti markay kasoo wareegato anaa video kala sameynaa insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.